بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كانيها دعدا iyo dhiirigelin oo aynu kusoo qaadan doono sheekadeena fikirkaagu waa hoggaanka noloshaada oo aynu kasoo xiganay buugeena xasuusqo dhakhtar ilkood ayuu qortay Dr. Hibaaq Cabdiraxmaan Ismaaciil Buubaal. fikirkaagu waa hoggaanka noloshaada ma dhabbaa fikirka aad nolosha ka aaminsan tahay waa hoggaanka noloshaada ma dhabbaa fikirka iyo hamiga aad isku qancisid inuu saameyn ku yeelanayo saacadaha noloshaada maalmaha noloshaada iyo sanadada noloshaada iyo inay saameyn karto noloshaada oo dhan waligay waan maqli jiray laakiin runtii aad bay igu adkayd in aan fikirka aamino oo aan ka dhigo wax ka qayb qaadan kara noloshayda sidoo kale macquul uma aanan arkahayn inuu noloshayda saameyn ku yeelanayo fikirkaygu ilaa ay hor timaaday taariikhdu markii ay ahayd 30kii bishii 11aad 2014 waxaan aamini jiray oo dhan isbedeleen oo aan xaqiiqsaday in qofku uu yahay waxa uu naftiisa ka aamino haddii aynu u dhaadhacno duruucda sheekadeena maalintaas aan sare ku soo xusnay waxa dhakhtarka la igu keenay wiil yar oo laga keenay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa oo ilig xanuunayo si aan xanuunka iliga ka haya uga daaweeyo wiilkan yar oo daadiisu ahayd 9 jir markii aan hawshii caafimaad u dhameeyay ayaan wiilkii yar waxaan weydiiyay maxaa doonaysaa inaad noqoto mustaqbalka haddii Ilaahay ku daayo wiilkii yar oo ay deganaan iyo isku kalsoonaan badan ka muuqato ayaa iigu jawaabay waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha dalka xukuma inta kuma hakinine wuxuu isagoo hadalkiisa sii wata ii raaciyay oo yiri waliba marka aan madaxweynaha wadanka noqdo waxaan dhisi doonaa guryo dhaadheer oo wada qurux badan oo dusha sare cascas oo dayr weyn leh deyrkaasna waxaan ku beeri doonaa khudaar badan iyo dhir badan marka aan dhameeyana dhammaan caruuraha agoomaha ah iyo dadka danyarta ah ama aan dhisan karin guri ama jiingad ku nool waxaan siin doonaa mid kasta guri ku haboon runtii hadalkii baa iga kala duulay oo aniga intaan aamusay wiilkii yaraa ku dhaygagay oo waxaan ku hadla garan waayay mar waxaan eegaa da'da wiilka yar marna waxaan qiimeeyaa hamiga uu xambaarsan yahay inta uu leeyahay iyo fikirkiisa cabirka uu haysto waxaan aaminay in wiilkan yari maalmaha kamid ah uu noqon doono madaxweyne haddii Alle cimriga u dheereeyo anigana markaan arkay wiilkan awoodda iyo dareenka uu ku hadlayay waxay ku kaliftay inaan aamino waxaan doonayo haddaba Soomaalidu waxay ku maamaadaa sheekay keentaaye wiilkan yar hadalkiisu waxa uu xasuusiyay maamahii orahan maqli jiray oo aan buugaagta ka akhri jiray oo ahayd bini'aadamku waa waxa uu naftiisa ka aamino taasoo macnaheedu tahay hadba si aad u fikirto waxa ay saameyn ku yeelan kartaa raadka noloshaada haddaba ma ogtahay akhrista waa ma daawadow haddii aad aamintid inaad noqonayso nin taajir ah inaad gaari karto haddii aad aamintid inaad iskuulkaaga aad kaalinta koowaad ka gashay imtixaanaadka kuna dadaashid inaad ku guuleysan karto ma ogtahay in haddii aad isku qancisid inaad noqoto qof farxaan ah inaad noqon karto ma ogtahay in haddii aad ku hamidid inaad wadanka aad ku nooshahay madaxweyne ka noqoto adigoo aan waxba haynin in ay dhici karto in fikirkaaga aad ku guuleysan karto aynu soo qaadano sheeko caan ahayd oo aan tan ku soo xasuustay halkaas ay inoogu eg tahay qaybteeni koowaad ee sheekadeena fikirkaagu waa hoggaanka nolosha